صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر. صلاح الدين الأيوبي marka la soo hadal qaado waxa hubaal ah inay wada garanayaan Carab iyo Cajam, geesigii xoreeyay qibladii koobaad ee muslimiinta. صلاح الدين الأيوبي waxa uu ku dhashay magaalada Tikrit ee dalka Ciraaq sanadku markuu ahaa 532 hijriya isla markaana ku aadan 1138 miilaadiga. aabihiis Najmuddin al-Ayubi waxa uu maayar ka ahaa magaalada Tikrit. magaaladan waxaa degan dadka Kurdida ah ee uu ka soo jeedo Salaaxudiin al-Ayubi, laakiin waxa uu ku soo barbaaray magaalada Dimashq ee dalka Syria, halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga diiniga. kartida hogaamineed ee uu lahaa awgeed reer galbeedku waxa ay ka sameeyeen qisooyinkiisa aflaam aan ka turjumayn halgankii geesinimo ee uu ka guulgaaray aakhirkiina sababay furashada Qudus. boqorkii ka talinayay Dimashq Nuruddin Zinki ayaa Masar u diray guuto ciidan ballaaran ah oo uu hogaaminayo Salaaxudiin adeerkiis Asaduddin Shirko si ay u burburiyaan dowladii Faadumiyiinta Shiicada. Salaaxudiin ayaana qayb ka ahaa ciidanka ay iswajaheen Faadumiyiinta Masar. muddo kadib waxaa geeriyooday adeerkiis waxaana hoggaanka la wareegay Salaaxudiin al-Ayubi. dagaallo adag kadib waxaa u suurto gashay burburinta dowladii Faadumiyiinta Masar oo ka talinaysay 262 sano. waxa uuna meesha ka saaray fikirkii Shiiciga ahaa ee ku xididaystay Masar. kadib la wareegidii Masar waxaa khilaaf ka dhex bilowday Salaaxudiin iyo boqorkiisii Nuruddin Zinki, waxaana dhex maray dagaal aan sidaa u sii badnayn. sidoo kale waxaa ku soo duulay Suudaaniyiintii bariga, balse waxay kala kulmeen iska caabin kulul. waxa uu kasbaday quluubta muslimiin badan sida Masar oo uga dulqaaday dulmigii, balse hamigiisu kuma ekayn Masar oo kaliya. Salaaxudiin maamulkiisa waxaa ku soo biiray Xijaaz oo ah jasiiratul Carab. muddo yar kadibna waxaaba geeriyooday boqorkiisii Nuruddin Zinki, waxa uuna la wareegay dhammaan Shaam iyo jasiiratul Carab. hase yeeshee waxa uu dheer joor ka badbaaday khiyaanooyin lagu qaarijin lahaa. dhulka barakaysan ee Qudus iyo dhammaan Falastiin waxaa ka taliya dowlad ay reer galbeedku asal u yihiin, ayna meesha ku hayaan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba. balse Salaaxudiin ayaa aasaasay dowlad cudud leh oo ku gidaaman dowladdaas. haddii aan dib u laabano maalin maalmaha ka mid ah, Salaaxudiin aabihiis ayaa waxa uu maqlay qof dumar ah oo la hadlaysa boqorka, waxayna ku tiri, waxaan rabaa nin alla ka cabsi badan oo aan u dhalo wiil xoreeya Qudus. Jamaaludiin aad ayuu ula yaabay ereyada gabadhaas, sababtoo ah isaga ayaa Ilaahay ka bari jiray xaas alla ka cabsi badan oo u dhasho wiil Qudus xoreeya. sidaas ayayna isku heleen. dagaaladii uu la galay dowladihii xoogga ku haystay Qudus waxaa ka mid ahaa dagaalkii caan baxay ee Xitiin oo horseeday furashada Qudus 12 Oktoobar 1187. waxa uu hantay dhammaan quluubta muslimiinta, waxa uuna gaaray hamigiisii ahaa furashada Qudus iyo dhammaan dhulkii muslimiinta oo gumaystaha reer galbeedku ay ku soo duuleen. balse hamigiisu ma ahayn in la boombooniyo ama tabcashada hanti badan. xitaa waxaa la sheegaa in markii uu geeriyooday aan gurigiisa laga dhexelin wax hanti la sheegi karaa, isagoo ahaa boqorka muslimiinta. runtii halkan laguma soo koobi karo taariikhda uu lahaa boqor Salaaxudiin al-Ayubi al-Malik an-Naasir. 27 Safar 589 hijriya oo ku beegan 4 Maaj 1193 miilaadi ayuu Salaaxudiin ku geeriyooday magaalada Dimashq. geeridiisa waxaa ka dhashay naxdin iyo murugo weyn, waxaana lagu aasay magaalada Dimashq, darisna looga dhigay Nuruddin Zinki. mowduuceena intaas ayuu ku egyahay maantay. wassalaamu calaykum.